gudoomiyaha ku-meel gaarka, mudanayaasha murashaxiinta gudoomiyaha golaha shacabka, gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo ku-xigeenka labaad, xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya, saxaafadda, shaqaalaha iyo ciidanka, si gaar ah guddiga qabashada doorashada guddoonka golaha shacabka oo ugu horeeya guddoomiyaha iyo xubnaha kale ee guddiga. dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinka codsanayaa inaad faataxada u akhrisaan marka aan shaqaalaha leenahay. ID kaarka Cumar Yare oo halkan maalin dhoweyd hoobiyihii waxyeello ka gaarsiiyey ishiisana iyo xaaladiisa caafimaad oo khatar ah. mudane guddoomiye, mudanayaal, waxaa hortiina yaalla sida xogeyntu qaybisay taariikh nololeedkay, inkastoo asagoo Soomaaliya in la qaybiyo aan jeclaa. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa mudanayaashii saaxiibadaydii hore ee dib ugu soo noqday, fursaddana uu siiyey ilaahay, iyo saaxiibada cusub iyo mudanayaasha cusub ee golahan ku soo biiray, gabdho iyo wiilal, taasoo door muhiim ah ay dhallinyarada maanta si gaar ah uga dhex muuqdaan golayaasha dowladda, gaar ahaan golaha shacabka, oo aan ku faraxsanahay hirgelinta siyaasadda dhallinyarada xilliyadii aan ahaa wasiirka dhallinyarada isboortiga, oo aan 2 jeer dalkan ka soo qabtay inaan ka dhaqangeliyo. waxaan leeyahay mudanayaal, saaxiibayaal, waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo uu hadda hayo, kaasoo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya. waxaan leeyahay khibrad, aqoon iyo shaqo dowladeed oo 41 sano ah, gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa 22 sano, hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin. taasoo sida ku cad taariikh nololeedkayga, waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo ku qoran dastuurka iyo xeer-hoosaadka golaha yeelan doona, ama kan hadda yaallo xeer-hoosaadka. anigoo og mudanayaal, waxaan ahay murashax hortaagan golo uu xubin ka yahay, kana dalbanaya, waxaan ahay xildhibaan og inuu ka dalbanayo golo uu xubin ka yahay, kuna dhex jiro, kuna sii dhex jiri doono inta aan noolahay, caafimaadna qabo. waxaana ahay musharax waajibka iyo awoodda xilgudashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka si cad u yaqaana. waxaan ahay mudane og awoodda guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka aan raadinayo, taasoo aanan ku dalbanaynin wax ka baxsan waajibaadka qoran ee ina hor yaalla. waxaana ahay musharax aan u hamuun qabin marka aad kalsoonidiina siisaan in aan aado kursiga kore ee guddoonka, waayo sbiikar, guddoomiye iyo afhayeen waa hal qof. sidaas daraaddeed kursi ka mida kuraastii aan ku dhex jiray ayuunbaan ku dhex jiri doonaa keliya marka aan ahay kusimaha guddoomiyaha. waana awoodda dhabta ah ee loogu dhaqmo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, heerkaas ay tahay. mudanayaal, waxaan isu soo sharaxay xilkan, waxaan isu soo sharaxay
muddo laga joogo 10 sano markay ugu horeysay oo koobaad xilka guddoomiye ku-xigeenka koobaad. mar labaad ayaan isu soo sharaxay xilka guddoomiye ku-xigeenka koobaad 5 sano ka hor. maanta 2022 waa markii saddexaad ee aan isku soo sharaxo isla xilkan. baarlamaanadii la soo dhaafay iyo golahan shacabka ee baarlamaanka. waxaan dareensanahay inaan ahay haween, taasoo ka dhigaysa liid muujinaysana magaca haween inuu noqonayo mid liida, taasoo meesha ka saaraysa khibradda, kartida iyo aqoonta aan ku gudan karo waajibaadka aan haddii aad kalsoonidiinna ay siisaan na waxaan noqon doonaa ugu horreyn horta ma rabo mar saddexaad inaad siisaan inaan haween ah iyadoo aad u arkaysaan inay sidaas tahay. laakiin haddii aad kalsoonidiinna isiisaan da ahaan saaxiibada halka ku jira qaarkood waxaad ii ahaan doontaan waalid aan aad ugu dhowahay, qaarkood waxaad ii noqon doontaan wiil aniga la mida ubadkayga, qaarkiin waxaad noqon doontaan saaxiibo iyo jaalayaal wada shaqayn oo aad u dhow. dalka Soomaaliyeed dadkiisu wuxuu dareensan yahay kuna baraarugsan yahay doorka haweenka Soomaaliyeed, waana xaqiiq mujtamaca guud ahaan xooga waxtarkiisa uu haween yahay in aan la xaqiri karin. saas daraaddeed ma muuqanayso in dalkani gaari doono ama aan horumarkeenna ummadnimo aan ku heli doono una horseedi karayno amni inaan la helaynin, nidaam dowladnimo oo aan ka muuqanaynin, lana soo celin karin cadaalad, aan laga gaari karin dimuqraadiyadda iyo xakamaynta diinta islaamka, maadaama dalkeennu 100% uu muslim yahay. mudanayaal, haddii allah subxaanahu wa tacaala idinku ilhaameeyey inaad codkiinna isiisaan, waajib gudashadayda waxay noqon doontaa sida ku qoran dastuurka iyo xeer hoosaadka oo keliya, kumana raadinayo awood intaas ka baxsan oo aan ku leexin doono gudashada waajibaadkaas. mudanayaal, waxaan idinka codsanayaa inaad tixgelin doontaan qoondada qodobka 3 ee dastuurka ku-meelgaarka ah farqadiisa 5 oo ay ku qoran tahay haweenka waa in ay ka mid noqdaan dhammaan guud ahaan hay-adaha qaranka si wax ku oolana jagooyinka gaarka ah, kuwa la isku doorto iyo kuwa la isku magacaabo. 3 laamood ee dowladda: sharci dejinta, fulinta iyo garsoorka. mudanayaal, mudana guddoomiye, mudanayaal, waxaan rabaa maanta inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan hortiinana ka sheego inaan u mahadceliyo qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanada gaar ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowlad goboleedka galmudug oo xildhibaanada baarlamaanadoodaas ay guddoonkooda gabdho ku soo dareen, maantana ay ka dhex muuqdaan. mudana guddoomiye, mudanayaal, saaxiibayaal, markaad ii garataan kalsoonidiinna oo ilaahay idinku ilhaameeyo oo aan noqon doono adeega idin ixtiraamo anigoo aan haba yaraatee wax kale ku bedelan doonin, uqsimu billah ilaahu ka markhaati noqo maanta inaan mar saddexaad mudanayaasha golaha shacabka xilka iyo awoodda aan dalbanayo aan ugu sheegayo. waxaan ahay murashax madax bannaan, waxaan kaloo ahay murashax aan miisaaniyad
midaan anigu leeyahay maba haystee meel aan ka soo qaaday aan idinku magac xumeeyo aan idinla hor imaan doono keliya hadal jeedintaydaas ayaad ku qiimeyn doontaa khadiijo maxamed diiriye intii taqaanna way taqaan inta kalena waxaa laga dhex raadin doonaa adduunkan tiknolojiyada hore u martay oo lii iyo wixii dalka loo soo qabtay mudanayaal saaxiibayaal haddii aad kalsoonidiinna golaha shacabka codkiina ay siisaan waajib gudaysho cadcad ayaa taalla taasaa keentay markii horena inaan isku sharaxo mar labaad inaan isku sharaxo mar saddexaadna maanta aan isku sharaxo sababaha horyaala golahan waajibkii saaran haddii ay ahayd shalay in xeer hoosaad lagu soo dhaqmo charter maantana dastuur ku meel gaar ah waxaa ku cad waajibaadka golaha inay tahay ansixinta miisaaniyadda dalka waxaa xanuun iyo dareen badan la soo qaybsannay shaqaalaha qaranka shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranka oo aan helin mushaar garaam gunno iyo daryeel caafimaad sidaas lamidana hay-adaha dowladda ee kale maanta waxaa muuqata in ay jiraan xoogaa intii ka duwan laakiin aan isweydiinno maxaa maqan qaranka soomaaliyeed waa qaranka dunida ugu dhalinyaro badan 70% mana laha shaqo abuur loo sameeyey shaqaalaha rayidka dowladda hadda qaata mushaarka joogtada ah hal darajo oo dallacaada ma helaan ama isbeddel gareedkooda ma jiro ayaga oo duruuf adag wax ku soo bartay shaqaalaha xitaa kuwa gunnada qaata kuwa kale ee fursadahaas heli lahaana lama qorin shaqaalihii dowladda looma qorin taasaa keenaysa dareennadaas isu soo birbiirsanaya iyo dalkan oo leh budget iyo miisaaniyad baarlamaankana ansixiyo oo aan intaas lagu darin lagu dabagelin dhaqangalka miisaaniyaddaas la meel mariyey weligeedna ma dhicin in xisaab xir la soo celiyo waayo waxaan gorayaasha qaarkood looga dhex faa'iidaysan jiray kala jabka iyo burburka golaha si aan loo samaynin isla xisaabtan dhab ah la dagaalanka musuqmaasuqana ay wuxuu ragaadiyey horu socodka hay-adaha dowladda taasoo sabab ka dhigtay in gebi ahaan ama inta badan mujtamaceenna ay kalsooni ka qabi waayaan dowladdooda mudanayaal jaalayaal saaxiibayaal xildhibaanada haddii aad siisaan kalsoonidiinna waxaan jeclahay inaan hoosta ka wada xariiqno cutubka 2 ee dastuurka qodobka 10aad ilaa qodobka 42 waa oo muwaadin kasta iyo mudane kasta uu ku ilaalin karo xuquuqda asaasiga ah ee bini aadamka waxaan saldhig u ah diinta islaamka qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nabiga salaatu wasalaam mudanayaal dalkani wax badan waxaa laga sheegaa in isbeddel laga rabo 20 sano iyo 2 sano 6 baarlamaan waxaan ka gudbin la'nahay meeshii aan taagnay sababta haddii aan isweydiinno waxaan wax badan raadinaa inaan 4.5 laga gudbo loona gudbo hal cod iyo hal qof 2000 ee carta laga soo bilaabo sababaha ugu waaweyn ee igu soo celcelinaya marka saddexaadna aan u taaganahay waxaa ka mid ah waajibaadka sida hadda miisaaniyadda aan u sheegay maqaamka magaalada muqdisho inuu dejiyo golaha shacabka weligiisna 22 sano 5 baarlamaan aan soo dhaafnay loogama hadlo waana asaasi ay u tahay dhammaystirka dastuurka aan raadinayno iyo in laga gudbo 4.5 dib u eegista dastuurka waxaa furo u ah in aan dhammaanteen ay naga wada go'naato 30 sano ayaa burburkii kadib la daalaaldhaclaynaa dowladnimada qaran
rubac qarni cagacagaysana aan ka weynay in ay saldhigato lagama maarmaan ayay tahay marka in aan si loo dhammaystiro dastuurka dib u eegistiisana usoo gebagabayno aan jidkaas dheer oo ina sugaya aan wada qaadno haddii kale mudanayaal ma fududaan doonto in aan xaqiijinno hirgelinta nidaamka federaalka wadaagga khayraadka iyo qaybintiisa sinjiyadda soomaalinimo wadaagga xuduudaha dowlad goboleedyada iyo soodimahooda tirakoobka dadka Soomaaliyeed oo sax ah la dagaalanka argagixisada hirgelinta maxkamadda dastuuriga sugidda amniga dalka guud ahaan bad cir iyo dhul taana in la damaaciyo khayraadka dalka maadaama loo dejin waayo shuruuc lagu ilaaliyo mudanayaal saaxiibayaal waxaa sharaf ii ah inaan hadalkayga kusoo gebagabeeyo waajib gudashadayda waxay noqon doontaa sida danta dalka dadka iyo diinta ku jirto uqsama billah ilaa ka marqaatino waxaan si weyn ugu istaagi doonaa mudanayaasha golaha shacabka una noqon doonaa difaacaha iyo doodaha ilaalinta xasaanadda iyo difaacaha iyo doodaha xuquuqda shaqaalaha iyo guud ahaan daryeelka caafimaadkooda si gaar ah miisaaniyadda ayaan ku xaqiijin karnaa xildhibaanan wax u qabanayaa caafimaadaan u samaynayaa intii karaankeyga un baan samayn karaa ama aniga samayn karaa laakiin haddaan miisaaniyadda lagu ilaalin xuquuqaha xildhibaankii sheega inuu dadka celal u qodaayo ama uu musaraxii sheega inuu guryo dhisaayo ma garanayo budgetkaas iyo miisaaniyaddaas meesha uu ka keenayo halkan ugu soo doonan doono 22 sano gudoomiyaal noolaa jooga magaaladay joogaan maqaalkan waa maqlayaan marka laga reebay cabdalla deerow isaaq gudoomiyihii hore ugu horreeyay carto oo geeriyooday hadda kuwa jooga kuwa golaha dhexdiisa ku jira 22 sano abidkayna tigid ma helin abidkayna daryeel caafimaad ma helin si looga taxadaro marka waa inaan ogaanaa inaan maanta awood u heli karno cumar yare wixii duruufahaas dalka ka soo gaaray mudanayaal gabagabadii hadalkayga jaalayaal saaxiibadayda haddii aad kalsoonidiinna si buuxda codkiina ii siisaan aniga oo u hoggaansamaya waxa aan raadinayn waa guddoomiye ku-xigeen koobaad maantana waxaa idin hor fadhiyo murashaxiinta guddoomiye ku-xigeen koobaad iyo labaad baarlamaankana wuxuu leeyahay guddoomiye annaga raacayna markasta faritaankiisa oo aanan keensan karin barnaamijkaas baa qadiijo wadataaye waxa qoran unbaan ku dhex shaqayn doona taasaa marka keenaysa in aan ugu dhex jirayno sida una buudanayno sida danta dalka iyo dadka ay ku jirtay diinta cidna ugu habran mayno cidna uguma leexanayno waana rumaysnahay inaan ka dhabaynayo dhaartii aan soo maray jaalayaal mudanayaasha sharafta leh saaxiibadayda qaarka ah allahuma laa maanica limaa cadayta walaa mucdiya limaa manacta walaa raada limaa qadayta walaa yanfacu daljad minka aljad yaa daljalaali walikram haddii aad isku raacdaan oo dhan haddaan rabi ii qadarin ima siin kartaan waa yaqiinsana haddii aad isku raacdaan inaad ii diidaan ima diidi kartaan haddii aan rabi ii qorin laakiin waxaan maraynaa procedure ah mudanayaal codkiina isiiya fadlan igu taageera inaan idiin noqdo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka saaxiibayaal waxaan codsanayo waa codkiina aan wada ducaysano ilaahu inta bugta noo caafi ilaahu inta dhimatay u naxariiso ilaahow abaaraha oonka iyo gaajada naga badbaadi waxaan ku jirnaa 10kii cisho ugu dambeeyey bisha ramadaan ilaahay taladeenna iyo go'aamadeenna tawfiiq ha ku daro ilaahay ha naga aqbalo acmaasha bisha barakaysan ee ramadaan oo leh fadli gaara ah
ha noogu naxariisto, ha noogu dembi dhaafo, naartana ha noogu xoreeyo kulligeed. af soomaaliga iga dhumayma. allahuma wafiqnaa fi leylati qadri mubaarak. waxaa laga yaabaa doorashooyinka inta lagu jiro inay ciidda timaado. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikheer, wabilaahi tawfiiq.